بسم الله الرحمن الرحيم waaxda dagaalka Mareykanka ee Pentagon-ka oo shaacisay qasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ee ciidanka Mareykanka ka soo gaaray weerarkii galabtay ka dhacay magaalada Tadmur ee bartamaha dalka Suuriya. weerarka ayaa la sheegay in kooxda ISIS ay fulisay waxaana soo baxaya warar lala xiriirinayo ninka weerarka fuliyay ciidamada ammaanka Syria. laakiin war amurahani ka duwan ayaa waxa uu ka soo baxay laamaha ammaanka ee dalkaasi. Trump oo u barar diiqay askartan la laayay wuxuuna ballan qaaday in si adag ay uga jawaabi doonaan. Netanyahu iyo wasiirkiisa gaashaandhigga oo si rasmi ah u xaqiijiyay dilka taliye sare oo ka tirsan ururka Xamaas Raid Saad oo lagu qaarajiyay marayka Gaza. weerar dhimasho dhaawac sababay oo RSF ay ku qaaday xarun qaramada midoobay ay ku leedahay dalka Suudaan. shaqaale ka tirsan qaramada midoobay oo wax ku noqday weerarka. xog cusub oo soo baxaysa ayaa muujinaysa in markab Shiinaha ka yimid oo agab military u siday Iiraan Mareykanku gacanta oo ku dhigay. sheekada ugu dambaysa ee barnaamijka aan idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay haweeneydan loogu magac daray turafatoradii qarniga ayaa booliiska waddanka Australia gacanta ay ku dhigeen kadib markii la sheegay iyada iyo gabadheeda in si cajiib ah oo yaab leh oo waliba khiyaano huwan dadka dahabka ay uga furanayeen bartamaha magaalada. dhammaan wararkan iyo waliba qodobo kale oo faahfaahsan ayaan idinkugu haynaa barnaamijka qubanaha. Imara Luxury Homes dhismayaasha cusub ee Imara Luxury Homes waxay ka kooban yihiin 2 qol iyo fadhi, 3 qol iyo fadhi, 4 qol iyo fadhi iyo guryo duplex ah iyo kuwo penthouse ah. guri kasta waxa uu leeyahay qolkii shaqaalaha waxaana loo dhammaystiray wax kasta oo xaafad gaar ah ay u baahan tahay. waa 2 dhismo cusub oo labadaba gacanta lagu hayo dhawaana soo idlaan doona. dhismaha koowaad shirkadu waxay ka dhisaysaa xaafadda Parkland City Park Drive 6th Avenue waxaana ku dhow yahay isbitaalka Aga Khan. dhismaha labaadna waxa uu marayaa dabaqa koowaad waxaana ku yaala Kilimani wadada madaxtooyada ama State House-ka ee Deansbury Road. faahfaahin dheeriya la xiriir ciwaanada iyo telefoonada shaashada kaaga muuqda. ku soo dhawow xarunta caafimaadka ee Private Walk in Clinic. Private Walk in Clinic waa xarun caafimaad oo ay ka howlgalaan dhakhaatiir khubaro ah oo isugu jira Soomaali iyo ajnabi oo rag iyo dumar bale. xaruntu waxay dib u habayn iyo casriyeyn ku samaysay dhammaan adeegyada caafimaad ee ay bixiso. xaruntu waxay furan tahay 7 maalmood ee isbuuca. ballantana si fudud ayaad u qabsan kartaa adigoo isticmaalaya telefoon, fariin qoraal ah ama online. waana heli kartaa ballan dhakhtar isla maalintaas. xarunta Private Walk in Clinic waxa ay ku taallaa galbeedka magaalada London xaafadda caanka ee Shafar Bush. wixii faahfaahina kala xiriir lambarada emailka iyo baraha bulshada shaashada kaaga muuqda. xarunta barashada diinta islaamka ee casriga ah ee habka online-ka wax lagaga barto ee Tawfiiq Islamic Online waxay leedahay 3 qaybood oo kala ah. qaybta higaada oo loo diyaariyay muddo cayiman, qaybta xifdinta Quraanka Kariimka, qaybta barashada shareecada sida xadiiska, fiqiga, siirada, naxwaha, tafsiirka Quraanka iyo caqiidada iyo wixii la mid ah. waxaana dugsiga kugu diyaara macallimiin rag iyo dumarba leh oo u tababaran maadooyinka ay dhigayaan. faahfaahin dheeriya la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqda. soo dhawaada markana daawadayaal si aad ula socoto oo hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno. haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. caawa waxaynu ku bilaabaynaa waddanka Syria halkaasi oo faahfaahin dheeraad ah ay ka soo baxayso askar Amerikaan ah oo lagu laayay galabta magaalo ku taal bartamaha waddanka Suuriya. barnaamijkan ka horreeyay ee wararka caawa waxaan idinkugu soo gudbinay iyadoo la sheegay in waxyeello ay soo gaartay askarta Amerikaanka. laakiin hadda warkii ayaa yimid isagoo dhammaystiran. aynu eegno macluumaadkii ugu dambeeyey iyo wararka laga helaya Syria iyo warbaahinta dalka Mareykanka. waaxda dagaalka ee Mareykanka ee magaceeda loo yaqaan The Pentagon ayaa xaqiijisay in 2 askari oo ka tirsan ciidamada dhulka ee Mareykanka iyo 1 muwaadin oo rayid ah oo Amerikaan ah lagu dilay weerar gaadmo oo kooxda ISIS ay ka fulisay lama degaanka magaalada Tadmur ee dalka Suuriya. weerarka ayaa dhacay xilli askartaasi taageero ay siinayeen howlgallo kanana sida bayaanka Mareykanka lagu sheegay argagixisada iyagoo howlgal wadajir ah la sameynayay ciidamada isbahaysiga caalamiga iyo hay-adaha amniga gudaha ee Suuriya.
taliska dhexe ciidanka Mareykanka CENTCOM ayaa sheegay in qofka rayidka ee la dilay uu ahaa turjubaan la shaqaynayay ciidamada Mareykanka isla markaasna uu ahaa muwaadin Amerikaan ah. weerarka ayaa sidoo kale sababay dhaawaca 3 kale. afayeenka waaxda gaashaandhigga ee Mareykanka Pentagonka Sean Parnell ayaa sheegay in dhaawacyadaasi la gaarsiiyey xarumo caafimaad, halka xogayaha dagaalka ee Mareykanka Pete Hegseth uu xaqiijiyey in ninkii weerarka fuliyey lagu dilay howlgal ay fuliyeen ciidamadii la howlgelayay kuwa Mareykanka. dhinaca kale, wasaaradda arrimaha gudaha ee Suuriya ayaa sheegtay in ninka weerarka fuliyey uusan wax xiriir la lahayn hay'adaha amniga gudaha, isla markaasna uusan ka mid ahayn ilaalada ama hoggaanka amniga. wasaaraddu waxay caddaysay in weerarku u dhacay xilli ay socotay booqasho ay samaynayeen ciidamada isbahaysiga caalamiga iyo taliska amniga gudaha ee Suuriya ee Tadmur, markaas oo xubno ka tirsan ISIS rasaas ay huwiyeen ciidamada. wasaaradda arrimaha gudaha ee Syria ayaa sidoo kale sheegtay in ay jireen digniino hore oo ka yimid ciidamada amniga gudaha iyo xoogaga la howlgalaya ee gobolka Baydia, kuwaasi oo ka digiyey suurtagalnimada weerar ISIS ay qaado, balse digniintaasi Mareykanku aysan qaadan. haddaba wararkii ugu dambeeyay sidoo kale waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa borordiiq u sameeyey askartan la dilay. wuxuu xaqiijiyey in 3 muwaadin oo Mareykan ah la dilay, isagoo sheegay in ay bixin doonaan jawaab degdeg ah oo arrintaasi la xiriirta. dhinaca kale, ilawareedyo ayaa waxay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters in qofka weerarkan fuliyey uu ka mid ahaa ciidamada ammaanka ee waddanka Suuriya, inkastoo warkan Syria ay beeninayso. waa tahay markan wixii ku soo kordha intaynu barnaamijka ku jirno ama barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbinaynaa haddii alla idmo. markan waxaynu jaleecaynaa dhanka waddanka Suudaan, halkaasi oo lagu soo warramayo weerar ka dhacay xarun qaramada midoobay ay leedahay in shaqaale qaramada midoobay ka tirsan waxyeello ay soo gaartay. ugu yaraan 6 qof oo rayid ah ayaa lagu dilay duqeyn xagga cirka ah oo ay fulisay dayuurad aan duuliye lahayn oo ay leeyihiin ciidamada gurmadka degdega ah ee RSF, taas oo lagu beegsaday xarun ay leeyihiin ciidamada qaramada midoobay oo ku taal magaalada Kadugli ee caasimadda gobolka Kordofan ee dalka Suudaan, sida ay warbaahinta u sheegeen ilo xogogaal ah. golaha sare ee militariga Suudaan ayaa si adag u cambaareeyey weerarkaasi, isagoo mas'uuliyadda dusha u saaray ciidamada RSF, kuna tilmaamay fal dembiyad u dhigma fal argagixiso oo abaabulan. golaha oo gudoomiye u yahay taliyaha ciidamada Suudaan General Abdul Fattah al-Burhan ayaa weerarka ku sifeeyey koror khatar ah, sida lagu sheegay bayaan rasmi ah. muuqaalo ku faafay baraha bulshada ayaa muujinayay dab xooggan oo ka kacaya dhismaha la duqeeyey iyo qiiq cirka isku shareeray. goobjoogayaal ayaa wakaaladda wararka ee AFP oo Faransiiska laga leeyahay u xaqiijiyey in dadka ku dhintay weerarka ay ahaayeen shaqaale ka tirsan qaramada midoobay, iyagoo tilmaamay in duqeyntu ay ahayd mid loo adeegsaday dayuurad daroor ah. ciidamada RSF ee magaalada Kadugli ku haya go'doominta muddo 1 sano iyo bar ah ayaa lagu soo warramaya weerarkan inay fuliyeen, waxaana qaramada midoobay bishii November ay xaqiijisay in magaaladaasi ay ku sugan tahay xaalad macaluul ah. gobolka ballaaran ee Kordofan oo u kala qaybsan 3 gobol ayaa caan ku ah beeraha, xoolaha, waxaana muhiim u yahay dhaqaaqyada militari iyo saadka, maadaama uu isku xiro deegaanada ay ciidamadu ka taliyaan ee waqooyiga, bariga iyo bartamaha dalka iyo gobolka Darfur ee galbeedka oo ay gacanta ku hayso RSF. RSF ayaa dagaal kula jirta ciidamada Suudaan tan iyo bishii Abriil 2023, waxaana gobolka ay ku baahiyeen dagaalamayaal, diyaaradaha droonka iyo maleeshiya xulafa, kuwaasi oo si joogta u fulinaya weerar kala duwan. waa tahay qodobkaas halkaas aynu ku dhaafno. goordhow waxaan u gelaynaa Netanyahu iyo wasiirkiisa gaashaandhigga oo goordhow xaqiijiyey in la dilay hogaamiye sare oo ka tirsan guutooyinka Al-Qassam, amaba ninka labaad sida hadalka loo dhigo ee iska caabinta Falastiiniyiinta ee Al-Qassam. waxaan kaloo idiin haynaa Mareykanka oo sheegaya in uu qabtay markab shixnad iyo agab ciidan siday oo Shiinaha ka yimid oo Iiraan ku socday,
iiraan sidee arrintan uga jawaabi doontaa intaana u gudbin wararkaasi iyo sheekadii ugu dambaysay ee barnaamijka oo aan idinkugu hayno sheeko afkale la qabsaday aynu ku hakanno qadar xayeysiina hoyga barashada diinta ee xifdul qur'aan online maadooyinka lagu barto waxaa ka mid ah quraanka kariimka higaada axaadiista ducooyinka tarbiyadda asaasiga ah ee ilmaha tafsiirka quraanka iyo qaybaha kale ee culumta shareecada waxaadna helaysaa 24 saacba 5 maalmood oo ka mid ah isbuuca dugsigu waxa uu bixinayaa caddayn waxbarasho oo aqoonsi leh ama shahaado faahfaahin dheeriya la xiriir whatsappka +252 633 145 153 wargelin muhiim ah ma doonaysaa in laga cimreeyo waalidiintaada oo dhintay ama sariiryaal ah wax ka yar $300 ayaa lagaga cumraynayaa waalidkaaga shirkadda altaqwa ayaa kuu samaysay qiimo dhimis waxaa lagu soo duubayaa muuqaallo ku saabsan qaabka cumrada ay u dhacday haddaba wixii faahfaahina kala xiriir shirkadda altaqwa xaj aan cumra nambarka shaashadda kaaga muuqda internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah soo dhawaada mar kale daawadayaan weli waxaad la socotaan barnaamijkii qubanaha oo toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida youtube-ka facebooka twitterka iyo telegramka warbixinno qoraal ah warar faallooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan barta internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirna hbn oo ka dhigo wehelkaaga wararka waa tahay wararkii ugu dambeeyey waxaan idinkugu soo gudbinay weerar ka dhacay maraykanka Gaza oo Israa'iil ku andacotay inay ku qaarajisay hogaamiye sare oo ka tirsan guutooyinka Al-Qassam haddaba ra'iisul wasaaraha Israa'iil iyo wasiirkiisa gaashaandhigga ayaa goor dhaweyta war soo saaray warbaahinta Israa'iil gaar ahaan wargeyska The Times of Israel ayaa waxa uu sheegay in Netanyahu iyo wasiirkiisa gaashaandhigga Israel Katz ay sheegeen in taliyaha sare ururka Hamas Raid Saad la dilay kadib qarax ka dhacay koonfurta maraykanka Gaza oo dhaawacay 2 askari oo ka mid ah ciidamada kaydka Israa'iil bayaan wadajir ah oo ay soo saareen Netanyahu iyo Katz ayaa lagu sheegay in weerarka lagu beegsaday Saad oo jawaab u ahaa qarax Hamas ay fulisay ayna ka fulisay waxa loo yaqaan aaga jaalaha ee Gaza sida hadalka loo yiri kaas oo sababay dhaawaca askarta Israa'iil waxay sheegeen in Saad uu ka mid ahaa maskaxdii ka dambeysay weerarkii 7 Oktoobar 2023 isla markaasna maalmahan uu ku hawlanaa dib u habaynta iyo soo nooleynta awoodda Hamas waa sida Israa'iil ay ku doodayso Netanyahu Katz ayaa ku eedeeyay Raid Saad inuu qorsheynayay weerar cusub oo ka dhan ah Israa'iil isla markaasna uu jabiyay heshiiska xabajoojinta iyo ballanqaadyadii Hamas ee la xiriiray qorshaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxay sheegeen in halkii hubka dhigis laga filayay uu ku mashquulsanaa hub urursi iyo waxay ku tilmaameen fal argagixiso labada nin ayaa carabka ku adkeeyay in cid kasta oo waxyeello u geysata Israa'iil iyo askarteeda ay wajihi doonto jawaab adag gudaha Gaza ama meel kale haddaba muuqaal militariga Israa'iil ay soo bandhigeen ayaa waxa uu muujinayaa gaariga sida hadalka loo yiri uu saarnaa Saad hogaamiyaha sare ka tirsan Al-Qassam oo daba socda gawaari kale oo kolonyo ah in gaari kaliis qarax uu ka dhacay kadibna waxyeello ay soo gaartay gawaarida kale ku hareeraysanaa Hamas ilaa iyo hadda mana beenin mana xaqiijin warkan laakiin waxay sheegeen in xadgudub weerarkaasi uu ku yahay heshiiska xabajoojinta gaar ahaan weerarka gaariga lagu beegsaday Hamas ma isan oran gaariga cidaasa saarneed iyo cidaasa wax ku noqotay laakiin warbaahinta carabtu waxay leeyihiin wararkan waa warar soo taraya la xiriira ninkan waxaana la sheegaa inuu ahaa ninka labaad ee guutooyinka Al-Qassam ee maraykanka Gaza wuxuu ku soo kordhay warkaas waynu arki doonaa markan waxaynu eegaynaa dhankaas iyo war la xiriira markab ka yimid Shiinaha oo ku socday waddanka Iiraan ayaa waxa la sheegayaa Mareykanku inay gacanta ku dhigeen haddaba xog cusub oo caawa soo baxday ayaa waxa lagu sheegay in Mareykanku bishii November ee aynu ka soo gudubnay in uu weerar ku qaaday markab ka yimid Shiinaha kuna sii jeeday Iiraan xilli uu gooshayay badweynta Hindiya waxaana lala wareegay shixnad iyo qalab military oo saarnaa markabka
warbixintan waxaa daawacay wargeyska Wall Street Journal ee Mareykanka ka soo baxa waxaa lagu sheegay in mas'uuliyiin Ameerikaan ah oo magacooda aan la shaacin ay sheegeen in ciidamada Mareykanka markabka ay ku weerareen 100 mayl meel u jirta xeebaha dalka Sri Lanka ka hor intii uusan sii wadan safarkiisa wargeysku waxa uu sheegayaa in qalabka military ee Mareykanku la wareegeen uu ahaa mid Iiraan ay u adeegsan kartay sida hadalka loo yiri soo saarista hub caadiya isla markaasna qalabkaasi la burburiyay kadib markii la qabtay mas'uuliyiinta ayaa sheegay in Mareykanku muddo ay daba socdeen dhaqaaqa markabka ka hor weerarka iyagoo xusay in tani ay ahayd markii ugu horeysay sanado badan oo Mareykanku uu qabto markab ka imaanaya Shiinaha inkastoo aan la shaacin milkiilaha ama magaca markabkaasi iyo shirkadda iska lahayd taliska ciidamada Mareykanka Indo-Pacific ayaa ka cudur daartay ka hadalka faahfaahinta dhacdadan mar la xiriiray arrintan waxay la xiriirtaa iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump arbacadii ku dhawaaqay in la qabtay markab shidaal sidii oo aad u weyn laguna qabtay xeebaha Venezuela halka afayeenka aqalka cad Caroline Leavitt ay sheegtay in markabkaasi la qabtay kadib markii la ogaaday inuu waday shidaal loogu talagalay sida halka loo yiri ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan oo cunaqabatay inay saaran tahay laakiin arrinta la yaab kale waxay noqotay Iiraan ayada dhoofinaysa shidaal maxay uga baahan tahay marka shidaal Venezuela dood baa ka dhalatay hadalka ka soo yeeray afayeenka aqalka cad gabar lagu magacaabo Caroline marka waxay leeyahay warkeeda waa war iskhilaafsan waa yahay qodobkaas haddii inta kaga gudubno imika waxaan u gudbaynaa sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka oo aalab aynu ku soo qaadano sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aan idinkugu soo gudbino waxaan idin haynaa sheeko la yaab leh afkana gacanta lala saartay haweeney si qoraafaad ah oo turufateernimo ah dadka magaalo ay deganayd oo ku taal waddanka Australia dahabka uga furan